dhibaatada ugu badan ayna haysata hadaynu nahay ardada dhigata IT-ga ama engineering-ka qaybta leedahay architecture-ka mar walba waxaan u baahanaa computer graphic leh waad ogtahay computer graphic la marka suuqa aad ka soo iibsanaysid niyugiisa aad ayuu qaali u yahay oo $1 ayuu kor u dhaafaya haddaba shirkadda Muraas waxay ku soo kordhisay computerada user Dubai-ga ah ee graphic leh condition-kuna waad arki doontaa laakiinse waa boqol halka waxaan kugu hayaa computer qiimihiisu aad u jaban yahay Core i5 na ah waayo markaan Core i5 ku dhaho waxaad garan karaysaa qiimaha computerkaas uu joogo ka hor dhicmay sharaxaadisa laakiin computerkan aad ayuu kaaga anfici doonaa haddaad tahay arday dhigta IT-ga oo aad u baahan tahay isticmaashid waxyaabaha graphic-ka looga baahan yahay sida designing-ka iyo editing-ka ama aad u baahan tahay computer powerful oo ka caawiya programming-ka iyo waxyaabo la xiriir ama haddaad tahay arday dhigta engineering-ka oo aad u baahan tahay inaad architecture-ka aad ku design garaysid guryaha aad naqshadeyn doontid computer awood leh oo ku anfaca qiimihiisuna jaban yahay computerkan haddaba qiimaha jaban waxaan hubaa inuu si fiican kugu anfici doono baahiyaha dhammaan haddaad tahay arday IT ama haddaad tahay arday dhigta architecture design-ka fiidiyogan ila dhamayso computerkana specification-kiisa ila daawo haddii uu ku qanciyo waxaad ka helaysaa shirkadda Muraas oo qiimo jaban waliba waxaad haysataa 15 cisho oo warranty ah macnaha 15 cisho oo tijaabo ah baad soo marsanaysaa gacantaada ah computerka imka daawanaysi aan ku ciyaaraya game-ka kuna edit gareysanayay muuqaaladeeda waa computerkan horteeda yaala ama laptopkan horteeda yaala laptopkan magaciisa waxa la yiraahdaa Acer Nitro 5 waa laptopadii soo baxay 2022gii macnaha adduunka wuxuu yaalaa computerkani sanad 2 sano iyo badh computerkan Acer Nitro 5 kan horteeda yaala ee shirkadda Muraas ay keentay user Dubai ahaan ku keentay condition-kuna halka ka arkaysid quality-gooda aad ku fiican yahay haddaba systemka computerkani waa Core i5 11 generation ah generation-da ugu dambeeyay marba computerkaaga hadduu generation-kiisu uu 10 u kor u dhaafo quality-giisu ka sheekan karmaysid haddaba computerkan wuxuu wataa graphic card 4GB ah oo waliba integrated ah ku samaysan waa GTX 1650 ama 1650 waa graphic card-da 2022gii socday ama 2021kii socday oo aad quality-gooda u fiican yahay geemamkana quality fiican ku gaarsiin karaya inaad ku edit garaysidna waxyaabaha architecture-ka ee kaaga baahan graphic card-kana uga warwarimaysid awoodiisa uu leeyahay computerkan wuxuu kugu imanayaa RAM-kiisa ama memory-giisu 8GB sidoo kale waxaad ku helaysaa storage-kiisa 512GB iyo 1TB computerkan waxyaabaha ku fiican oo aadka aan ugu helo waxa kamid ah in uu support garayo kuna ogolaanayo inaad laba slot gelisid storage-ka macnaha inaad gelisid HDD iyo SSD kaba soo qaad waxa gelisay computerkaagan 1TB oo SSD ah iyo 1TB oo HDD ah awoodiisa waad fahmi karaysaa inta uu ku gaarsiin karayo inaad wax ku storage garaystid iyo awoodda booting-ka uu kugu soo kacayo dhaqsiyaha badan marka computerkani specification-kiisa imka aan ku sheegay inaba ka dhici maayo qiimaha la siinayo waliba waxaan aaminsanahay anigu qiimaha la siinayo iyo condition-kiisu inaan islahayn xaqiiqatan marka aad iibsid laftirkaaga oo 15 casho oo tijaabo aad marisidna waad ogaan doontaa in qiimaha aad soo sitay computerkani aan marnaba isu dhigin adoo ka shaqeeya sababta computerkan loo siinayo qiimaha inta la eeg waa shirkadda Muraas waxba ka shaqeyn quality-geeda iyo qiimaheeda mar walba quality-geeda sareeya sidoo kale computerdan Acer Nitro-ga iyo wixii ka dambeeyay waliba computerkan gacanta ku haya ee Acer Nitro 5 kan waxyaabaha uu aad ugu qurux badan yahay aan ka helay oo ku fiican yahay waxa kamid ah in keyboard-kaaga uu leeyahay RGB LED light uu leeyahay waliba aad customization ku samayn karaysid talanka arkaysid RGB LED light-kiisa waan bedeli karay anoo si walba ka dhigan karaya dhowr midab ama 4 midab ama 5 midab ka dhigan karaya sidoo kale computerkani waxa uu leeyahay marwaxado dual ah ama dual fan ayuu leeyahay oo laba marwaxadood oo computerkaaga si aan caadi u qaboojinaya waqtiga aad ciyaaraysid game-ka ama aad ku edit garanaysid waxyaabo aad ka culus ama aad design garanaysid waxyaabo aad ka culus markaas oo kale computerka sida caadiga ah wuu isku lulaya ama wuu kululaadaa laakiin se computerkani wuxuu leeyahay dual fan kaasoo aad kor u dilici karaysid xataa xawaaraha marwaxadda kaasoo si dhaqsi ah kugu qaboojinaya computerkaaga maxaa ka fiican computerkaaga isqaboojinaya adiguna isticmaalaysid game ama isticmaalaysid software graphic isticmaala oo waliba temperature-ka computerka aad u talacaya marka haddaan kugu dulmaro mar kale computerkan si guud ahaan kugu dulmaro computerkan waa Core i5 11 generation RAM-kiisa ama memory-giisu waa 8GB waxa uu wataa graphic card integrated ah oo ku samaysan kaas oo ah 1650 ama GTX 1650 waa 4GB graphic sidoo kale computerkan waxa uu leeyahay Killer R Wi-Fi 6 macnaha markaad Wi-Fi-ga u isticmaalaysid wax soo dhow gaarsiinaysid goobta aad internet-ka isticmaalaysid dhammaan internet-kaasi computerkaaga ba ugu awood badan marka computerkan specification-ka aad ka u sareeyo qiimihiisa
waxaad ku arki doontaa page-kayga Facebook Muraadso marka la soo dhigo toos baad u arki doontaa qiimaha la siinayo iyo kombiyuutarkan hana hilmaamin kombiyuutarkani inuu wato 15 cisho oo warranty ah oo saartu isu tijaabinayso waa 2 week saartu isu tijaabi haddii uu ku anfaco ilaahay ku barkayo haddii kalena waa soo celinaysa waa lagu bedeliyaa mid ka fiican hal mid aan ka dabageeyo haddii kombiyuutarkan qiimihiisa uusan jeebkaaga goyn karin qaab yaro fudud oo aad samayn karaysid baan kuu sheegaya kombiyuutarka iminka aad haystid ayaad soo qaadaysaa waxaad keenaysaa shirkadda Muraadso waxaadna dhigaysaa kombiyuutarkaaga adeega isku beddelka iyadoo kombiyuutarkaaga lagu qiimeynayo deedna kombiyuutarkana qiimihiisii laga jarayo kombiyuutarkaaga qiimihiisa inta ay isdheer yihiin haddii wax isdheeraadaan weeye adaa ku darsanaya saasna wax ku qaadanaysaa kombiyuutarkan graafiga ah haddaan waxba isdheereen toos baad u qaadanaysaa intaad kaaga dhigtid haddii laakiin kombiyuutarkaaga uu wax dheer yahay wixii uu dheeraa kombiyuutarkaaga ayaa lagu soo celinaya marka saas wax ku qaadanaysaa lacag iyo kombiyuutarkii graphic ha hilmaamin shirkadda Muraadso iyo adeegeeda isku beddelka oo aad ku heli karsid kombiyuutarkan sidoo kale waxaad ku heli karaysaa adeega haftada ee shirkadda Muraadso waad qaadan karaysaa haftana bishii waxaad ku bixin karaysaa qiimaha lagu qoondeeyo ee adeega haftada haddaba haddii muuqaalkan aad ka heshay kombiyuutarkanba fadlan muuqaalkan like-ta ka ilaawin commentigana ku soo mention garay saaxiibkaaga u baahan kombiyuutar graphic leh ama gaming aad u ciyaaro oo jecel inuu kombiyuutar gaming helo qiimo jaban ku helo ugu soo mention garay commentiga una sheeg shirkadda Muraadso u keentay kombiyuutar user Dubai ah oo graphic intaan ku kulmi doono video ka dambeeya oo review ah ama laptop ha ahaado ama mobile ha ahaado ama camera ha ahaado waxaan idin kaga tagi doonaa sida iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muuqaalkan xaqiisa si commentigan ku soo mention garay saaxiibkaaga u baahan kombiyuutar graphic ah